in badan baan kiis yaab badan aragnay amaan maqalnay kani waa kii ugu yaabka badnaa. dalka Mareykanka waxaa kasoo baxday sheeko la yaab leh maalin dhaweyd gabadh sanad iyo dhowr bilood laba caruura oo habareer u tahay meydkooda ku wadatay gaadhigeeda. hadda waa sanad iyo dhowr bilood. inkastoo la sheekadan mar hore ahayd laakiin fiidiyowga hadda soo baxay oo hadda TikTok ka yimid. gabadh xawaare sare ku socota waxaa qabtay booliiska dalkaasi Mareykanka dhexdiisa oo gabadh waxay ahayd gabadh madow ah. xawaaraha marka ay ku socoto iyo area meesha ay marayso yani socodkeeda heerka ay ku socotaa wuxuu ahaa qalad. يعني waxaa lagu qabsaday kaliya xawaaraha ay ku socoto masiibada iyo balaayada gaadhigeeda ka soo bixi doonto laakiin lama ogeyn. marka gabadhii la qabtay ee la istaajiyay baa la yiri maxaad xawaarahan ugu socotay meeshan aad marayso waxaas waa qalad waxaan lama ogola waxaa laga rabaa in gaadhigaaga la wareegaya hadduu gaadhiga wax ka saaran yahay alaab ah la deg. waxay tiri marka gaadhiga ani carruurtayda ku nool waxaan gabadh miskiin oo guri haysanin oo ani carruurtayda gaadhiga ku nool oo gaadhiga alaab badan baa iigu jirto iska kay cafiya mar dambe qaladkan ma galayo tigidh hadii kala hala isiyo ganaax iyo waxa may baa leeyahay may gaadhi waa inaad ugu soo wareejisaa wax muhiim hadduu ku saaran yahayna kala deg. gaadhigii bay furtay qaybtii dambe baco waaweyn oo isku duuduuban oo isku xidhxidhan baaldiyada marka la guurayo alaabta lagu rito balaaya ka soo gurtay meeshii. gaadhiga marka intay furtay marka waxyaalahan ay ka soo bixisay dhulka soo dhigtay waxbaa soo uray bay dareemeen booliiska nooc kale waxa leeyahay gaadhiga ka soo uraya waxay tirtay waa dhar wasakha waa bustayaal wasakha iyo wax laafiyo iyo maxay ani carruurtayda ku dhaxnool gaadhiga anagu guri ma haysano dhar wasakha meesha ka buuxa ani carruurtayda meesha ku nool beelado dhex seexan laakiin wax carruura oo xiliga la socota ma jirto. gabadh kale la socotay baa gabadha kale marka qof yar xanuunsanaysay u muuqatay oo meesha oo kale iyadu iska taagnayd waxaan la baarayo islaanta su'aalaha la weydiinayo kuma jirin. waxaa la yidhi waxan waa maxay uraya marka maxaa kasoo uraya bacahan iyo waxan waxay tiri waxaa kasoo uraya waa dhar wasakh oo dharkiibaa dee hadduu dharku wasakhayo meel lagu aruuriyo la dhaqinuuna hawe helino dee wuu isku siyici isku uriso maha waa dhar wasakh ma dhar unbaa mise wax kale may waxay tiri waa dhar wasakha waxaa la yidhi fur waxay tiri maxaan u furayaa gaadhigaa tirahdeen waan qaadanaynaa alaabta kala deg alaabteedi waan kala degay dee qaata gaadhiga wakaas inaad cafidaan waa diideen xataa digniin ganaaxa inaad isisaan waa diideen gaadhiga sooma qaadanaysaan bacahan iyo waxan waa dhar wasakha maxaan u furayaa may waxaa la yidhi fur. bicihii bay tiri waan furi bac bay furtaa tu kale way furtay tu kale wixii waqti buu qaatay waqti. booliiskuna waxay yidhahdeen marba marka ka dambaysa markay bac furto ee tu kale furtaba dee urku kasii daraya mid kale dhar wasakhi waxaas iyo wax suyaca iyo wasakh ma aha wuxuu wax dhintay neef baktiyay waxbaa kasoo uraya meesha bakti waxaa la yidhi bacahan fur bac bay furtay mid kale furtay booliiska mid kamid ah markii dambe caawiyey oo xataa u jeexay bicihii maba dhamaanayaanba mid markay furto mid tu kale malaha dee konton bacood ba isku gungunuday iyo baaldi iyo balaayo bicihii midii u dambeysay markii saas loo sii furayay wayba carartayba islaantii fakatax cagahay wax ka dayday waa maxay dhaagtay way carartay soo qabta waa la soo qabtay markii la soo qabtay bacihii tii u dambeysay inta la furay yani la fiiriyay waxa meesha ku jira laba ilmood meydkoodaaba kasoo baxayba. dadka qaar waxay leeyihiin laba ilmood meydkooda ka soo baxay qaarna waxay leeyihiin ilmo meydkiisa ka soo baxay haddana bax kale la furo ilmo kale meydkiisa ka soo baxay. almuhim gabadha waxyaalihii ay wadatay iyo balaayadii isku duudubneed iyo boqolkiiba cod marka la wada furfuray aakhirkii meesha waxaa loogu tagay laba ilmood oo yaryar oo meyda oo wiil iyo gabadha meydkooda meydee baaba-ay oray isbedelay mutaxallil noqday saaid isu bedelay sababtoo ah sanad iyo wax la jira sanad iyo bilooyin ayay ilmahan meydkooda islaantana gaadhiga ku wadatay. gabadhan waxaa la yidhi marka carruurta iyadu may dhalinay gabadha walaasheeda ilmaha dhashay waxay tiri walaashay baa ilmaha igu dayacday walaashay baa ilmaha dhashay walaashay baa ilmaha haysay walaashay baan ilmaha u korinayay walaashay baa ilmaha igu dayacday hooyadii baa dhihi jirtay mar walba ilmaha hay. almuhim waxaa la ogaaday gabadhii dhashay carruurtan inay noqotay qof daroogo iyo wax isticmaalo dhaqan celis ahaan meelaha dadka lagu dhaqan celiyo la geeyo meelaha ay ku jirtay oo daroogadan iyo waxaan maskaxdeeda laga soo dhaqay. middan carruurta meydkooda gaadhiga ku wadanaysa carruurta loo dhiibay marka oo la yidhi hay carruurta adaa habarirtooda intay dee walaashaa kasoo fiicnaanayso carruurtii bay hayn jirtay sababta ay u dishay iyo sida ay u dishay iyo waxa ay sameeyeen carruurta ilaa hadda lama oga laakiin ilmihii intay dishay oy meydkoodii bac ku gunuday iyo tu kale dhowr iyo konton bacood ay isku xidhxidhay bundadweyn bay ka samaysay say bicihii ugu xidhxidhays bayba aayar carruurta meydkooda gaadhiga ku wadan jirtayba. sanad iyo dhowr kaabilood cid ogaatay iyo cid ka shakiday midnamaba jirin maalinka ay xawaaraha qaldan ku socotay bas unbay booliisku ka shakiyeen markii la yidhi gaadhiga waxa kuu saaran kala degna jawaan iska weynaaday unbay dejisay oo uraya jawaankii fur marka la yidhina laba ilmood meydkoodaaba kasoo baxayba. islaantii waxaa la sheegaya in la maxkamadeeyey oo 50 sano lagu xukumay
midii caruurta dhashayna dee way qaracantay markay ogaatay sababtoo xilligan caruurta meydkooda la ogaanayo xilli gabadhii caruurta dhashay daroogadii wixii ay ka dhaqmeen oo isbitaalkii dhaqan celiska ka soo baxday bay ahayd marka la weydiiyay lagu dhahay dad fiicnaatay maxaad caruurtaada ula wareegi weydeen waxay tiri gabadhana ii diiday marba magaalay u guurisay iyo marba gobol ma caruurtii xataa ay tusuun may caruurta anaa soo korsaday caruurta anaa raba way i jecel yihiin anay i doonayaan haye aan arka uun xataa inaan arka waxay tiri way ii diiday maxaad arki lamaaba caruur inta la dilay sanad ka hor meydkoodii gaadhiga lagu wato alla maxaa adduunyada wax kasta lagu arki gabadhan marka ilaa iyo hadda يعني si toos uma cadda sababta caruurta ay u dishay dadka qaar waxay leeyihiin caruurta yarka waxay tiri way i dhibeen mas'uuliyadoodan qaadi kari waayay walaashayna way igu dayacday way i dhibeen cuntada iga xadi jireen maxay bay farijeerka kala soo bixi jireen laakiin muhiimadu waa in islaantii 50 sano lagu xukumay labadii ilmood ee saqiirkaana dee waa la duugay